Assalaamu calaykum. Ku soo dhowaada qaybtii labaad. Ninkii sheegtay inuu meero kala tagay John Carter. Intaan mowduuceena bilaabin, fadlan muuqaalkan like inoo saar. Sababtoo dhiirigelin bay noo noqonaysaa. Kuna soo biir kanaalkeena xog baahiye adigoo subscribe taabanaya. Makhluuqaadkii aan arkayay dhammaantood waxa ay wateen waran afdhuuban iyo hub kale oo kala duwan. Waxay saarnaayeen xayawaan gaadiid u ahaa oo aad u weynaa. Mid iyaga ka mid ah ayaa xayawaankii uu saarnaa ka soo degay. Dhankayga ayuu u soo dhaqaaqay. Midabkiisu waxa uu ahaa cagaar tikh ah. Ilka badanna wejigiisa way ka muuqatay. Waxa uu ahaa muuqaal ahaan mid aad u cabsi badan. Dhererkiisa ugu badnaan waxa uu gaarayay 5 mitir. Dhankayga ayuu u soo degdegay. Anigu wax hub ma wadan. Fursadda kaliya ee aan heli karo waa in aan baxsado. Waxaan awoodi karay inaan boodboodo. Markii uu ii soo dhowaaday ayaan hal mar booday. Kuwii kale oo dhan way i daawanayeen oo way ila yaabeen. Waxaan arkayay iyaga oo isla hadlaya. Waxaan damcay inaan baxsado oo meesha ka cararo. Hase yeeshee waxay wateen hub aan laga baxsan karin oo aad u khatar badan. Sidaa daraaddeed iskuma dayay inaan cararo. Midkii dhankayga u soo socday goortuu ii soo dhowaaday ayuu hubkiisa dhulka dhigay. Gacanta ayuu ii soo taagay. Waxa uu igula hadlay luqad iga yaabisay oo aanan fahmayn. Waxaan taas u fasirtay inuu doonayo nabad iyo inuusan rabin inuu wax yeeleeyo. Anigana cod jilicsan ayaan ugu sheegay magacayga. Waxaan kaloo intaa u sii raaciyay in aan aniguna rabo nabad, laakiin isagu ima fahmayn. Calaamad ayaan ugu muujiyay in aan u socdo nabad oo aan doonayn dagaal. Tartiib ayaan isku fahanay. Waxa uu i siiyey bir gacantiisa ugu xirnayd. Intaa kadib tilmaam ayuu ii bixiyay. Tilmaamtaasoo ah in aan soo raaco. Waan soo raacay. Gaadiidkii uu fuulna ayaa la fuulay oo waan soo dhaqaaqnay. Waxaan arkayay dhul buuraley ah oo buuraha waxaad moodaa inuu anaga nagu soo fooraro. Waxaad moodaa in aad dhex joogtid badweyntii dhimashada. Intaa kadib waxaan soo gaarnay magaalo yar. Magaalada dhaqdhaqaaq la'aanteeda waxaan markii hore moodayay in aysan cidna ku noolayn. Dhismayaasheedu waxay ahaayeen kuwo dayactir la'aan ka muuqatay, laakiin si dhaqso ah ayay indhahaygu ku qabteen boqolaal makhluuqaad oo kala duwan oo iga yaabiyay. Sidii bini'aadamka oo kale ayay lugo iyo gacmo iyo weji lahaayeen, laakiin midabkoodu waxay ahaayeen midab cagaar ah. Waxaan arkayay dumar iyo carruur wada cagaaran. Makhluuqaadkan cagaarka ah waxaa caado u ah in dhowrkii usbuucba ay magaalo degaan. Isku mar ayay meesha ka guuraan, meel kalena ayay u guuraan oo way isla socdaan dhammaantood. Waxaan ka soo degnay xayawaankii aan dushiisa saarnayn. Waxaan galnay qol ay ka buuxaan dad kale oo cagaaran, laakiin wejiyadoodu waxay u muuqdeen kuwo aad u caraysan. Runtii wax shaki ah kuma sugnayn in ay kuwaan ahaayeen madaxdii deegaanka, oo waan gartay isla markiiba. Mid ka mid ayaa ii yimaaday. Gacanta ayuu i qabtay, wuuna i ruxay. Kadibna kor ayuu ii qaaday. Markii uu intaa samaynayay wuu qoslayay. Intaa kadib waxaan ogaaday noolayaashan cagaarani waxay qoslaan markii ay qof kala dhibaan. Ninkii dhowr joor ayuu dhulka igu dhuftay. Markii dambe waan xanaaqay. Feer ayaan wejiga kaga dhuftay. Waxay ahayd waxa keliya ee aan samayn karay, waayo aad buu dhulka iila dhacayay. Ninkii aan feerka ku dhuftay wax dhaqdhaqaaq ah ma uusan samayn. Intii kale ee qolka ku jirtay mar qura ayay wada aamuseen. Waxayna la yaabeen gacantayda keliya in ay dhulka dhigtay mid ka mid ah iyaga oo ay xoog ku tuhmayeen. Markii ay intaa dhacday waan ka soo durqay oo waxaan isku dayay inaan sameeyo wax walba oo aan isku difaaci lahaa, laakiin iyagu ma dhaqdhaqaaqayn oo way ila yaabanayeen. Kii markii hore i soo waday ayaa ii soo dhaqaaqay oo igu yiri Tragis, isaga oo fartiisa xabadkiisa ku tilmaamaya. Anigana xabadkayga ayaa farta ku tilmaamay oo waxaan u sheegay inuu magacaygu yahay John Carter. Intaa kadib ninkii waa uu jeestay. Waxa uuna ku dhawaaqay ereyga ah Sola. Si degdeg ah ayaa meeshii waxa u timid haweeney cagaaran. Waa uu la hadlay. Markii ay hadalkoodii dhammaysteen
Soola dhankayga ayaa u soo dhaqaaqday, wayna isoo kaxaysay. Haweenaydii isoo waday ayaa cunno ii keentay. Runtii gaajo daran baa i haysay. Sidaa daraaddeed, cunnadii dhammaan waa wada cunay. Anigu iyadu ma fahmayo, iyaduna aniga i fahmi mayso. Ereygii hore ee loogu yeerayay Soola ayaan ku dhawaaqay oo waxaan idhi Soola. Haweenaydaasi waardiye ayay ii noqotay. Intaa kadib waan isfahnay oo waan isku soo dhowaanay. Markii dambena saaxiibo ayaan noqonay. Anigu qolkii ayaan isaga jiray. Waqtigaygu waxa uu ahaa mar aan wax cunno iyo mar aan luqadooda baranayo. 2 maalmood kadib, ninkii Trackis ahaa ayaa qolka iigu yimid. Waxa uuna watay hub iyo bir ay dadkaasi gacanta ku xiran jireen. Haweenaydii Soola ahayd waxay u sheegtay in aan anigu luqadoodii wax ka bartay. Intaa kadib, Trackis waa uu soo jaleecay. Waxa uuna igu yiraahday, ninkii aad feerka ku dhufatay waa uu dhintay. Hubkiisa adigaa lagugu wareejinayaa. Trackis waxa uu igu yiraahday, ninka aad dishay waxa uu ahaa hogaamiye kooxeed dadkeena ka tirsan. Maadaama aad adigu dishay, waa in aad adiga kooxda aad ka dishay aad hogaamiye u noqotaa. Trackis waxa uu intaa igu daray in aan ahay maxbuus, laakiin kalsoonida ay dadka igu qabeen way ka soo reynaysay. Intii uu ila hadlayay, waxa albaabka soo istaagay xayawaan qaab dhismeedkiisa aan aad ula yaabay. Waxa uu ahaa mid aad iyo aad u fool xun. Waxa uu lahaa ilka fara badan oo safan. Sidoo kale waxa uu lahaa 10 lugood. Trackis ayaa la hadlay xayawaankii, iguna soo tilmaamay. Kadibna Trackis waa uu iska tegay. Xayawaankii ayaa dhankayga u soo dhaqaaqay. Intaa kadib, Soola ayaa xayawaankan xog iga siisay. Makhluuqaadkan magaceeda waxaa la dhahaa Woola. Raggeena ayaa u isticmaala dagaalka. Waxa uuna halkan u yimaaday in uu adiga ku waardiyeeyo. Sidoo kale waxaa lagu wargeliyay in aadan baxsan. Makhluuqaadkan aad iyo aad buu u dheereeyaa. Xagga dagaalkana si dhaqso ah ayuu wax u dilaa. Marka John Carter ha isku dayin inaad baxsato. Intaa kadib, markii ay Soola ii sheegtay, waxaan sii watay daawashada makhluuqan Woola loogu yeero. Horay ayaan u arki jiray. Runtii dadka halkan ku nool si xun bay ugula dhaqmaan, oo weliba xaasidnimo ah. Waxaan ku fakaray in aan isbarano makhluuqan. Waan ku soo dhowaaday. Waxaan bilaabay inaan la hadlo. Meel agtiisa ah ayaan fariistay. Hadal jilicsan ayaan kula hadlay. Waxaan isdhahayay xayawaankan naxariis laga heli maayo. Laakiin markii dambe kalsooni badan baa siiyay. Waxa ay markii dambe Woola noqotay saaxiibtay. Khatarta ayay iga ilaalin jirtay. Dhowr maalmood kadib, Soola ayaa ii timid iyada oo arrin weyn ii wada. Waxa ay ku qaylinaysay, John Carter isoo raac. Cadow ayaa ku soo duulay magaaladeena. Waa inaan la dagaalanaa. Sidii aan ku baxsan lahayna u diyaar garownaa. Waxa aan weydiiyey, waa maxay cadowgu? Waxay ii sheegtay in qowmiyad kale oo meelo kale ku nool ay nagu soo duuleen. Sidoo kale waxay ii sheegtay in ay wataan qalab casri ah. Buurahan dhow ayay soo gaareen. Waxa ay amar igu siisay in aan hubka qaato oo aan meesha ka dhaqsado. Si degdeg ah ayaan dhismihii uga soo baxay. Waxa aan ku biiray ciidankii. Waxaa meel fog iiga muuqatay wax dayax gacmeed oo kale ah. Kooxdii aan la socday waxay bilaabeen inay iska caabiyaan, walow hubkooda uusan aad u khatar badnayn. Wax yar kadib, waxaa qoladayda u suura gashay in ay la wareegaan hubkoodii. Ugu dambeyntii waxay halkaa ku soo qabqabteen maxaabiis dhowr ah. Maxaabiistii markay ag marayeen oo igu soo dhowaadeen, waxaan arkayay haweeney suurad bini'aadam oo kale leh. Waa ay yareed. Jirkeedana waxa uu ahaa mid iftiimaya oo guduudan. Waxa aan fiiriyaba waxa ii muuqatay in gabadhu ay aad u qurux badnayd. Waxay lahayd weji qurxoon oo ay ku yaalaan indho madow. Waxay lahayd timo madow oo dhaadheer. Raggii waday siday u soo socdeen ayay igu soo dhowaadeen. Iyadu markii ay aragtay, waxaa wejigeeda ka muuqatay rajo ah in aan anigu badbaadinayo. Laakiin wax isku day ah oo inaan la hadlo ah ma samayn. Isla markiiba wejigeeda waxaa fuushay murugo. Waxayna ii fiirisay si hoose oo cabsi ay ka muuqato. Anna waan sii fiirinayay
ilaa bidhaanteeda ay iga qarsoontay. Waxa ay ag taagnaa Soola oo si weyn ula socotay dareenkayga, aragtayna inaan ku mashquulay gabadha. Soola ayaa igu tiri, naagtaasi xaalad xun bay ku jirtaa. Waad u jeedaa inay maxbuus tahay, waxaana la geynayaa xero weyn oo la isugu keeno dadka maxaabiista ah. Halkaasi waxaa ka dhaca falal xun oo dadka maxaabiista ah lagula kaco, natiijada dambena waxay noqotaa dhimasho. Runtii markii ay intaasi dhacayso, dadkeenu waa ay ku raaxaystaan oo waa caadadooda. Intaas markii ay Soola igu wargelisay, Soola wejigeeda waxaa ka muuqatay murugo, waxaana ka gartay in dhaqankan ay dadkeedu sameeyaan aysan ku faraxsanayn, weliba aynan doonayn gabadha yar dhimashadeeda. Intaas ayay qaybtii labaad ku eg tahay. La soco qaybta saddexaad ee ku xigta. Kanaalkeena Xog Baahiyana subscribe taabo si muuqaaladan ay kugu soo dhacaan. Gambaleelkana furo. Wassalaamu calaykum ورحمة الله تعالى وبركاته.